daawadayaal wacdara la yaab la ka dhacay magaalada Hargeysa wacdara la yaab leh wariyuhu sidoo inoo sheegay wuxuu yiri 5500 waa waxaan la qaadan karin waa waxa aad u tiro badan Hargeysa way yaabtay maanta Hargeysa way yaabtay ciida dhaqaaqday arligu wada hilaac buu ahaa xidigihii geeska joogay Hargeysa urusiyaasadka hilaac buu xidhan yahay urusiyaasadka hilaac baa kala xidhay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا قيمها قايها قدرينتا يا حشميتها مدنيا كحلان شانل كينا بورما كيبل برث يوتيوب هادي هذا يدقو ما سنتين سيدا المقالة دينا والله قرين السان ونشير قرين السان داوديال وحانو سيشم الله يدكا عصرينا إنا سوصة بسكراب قرين السان شانل كينا بورما كيبل ساد وقلا سعطان وربحنو يدعذوين هاد بحلقاسي تاغن داوديال مالتا مقالة هرقيسة عيدا دقاقضي أرلقوا وضا هلاع بوها وضا هلاع ورسياسة يدي كلا هلا ترتمي هلاع هرقيسة مدحي قبسدين ويامين وحيكو هالله بيقرن وايين شعب كي عاصمة هرقيسة والا حكمين كري وايي وايهي شامعو سيدا سيديات هرقيسة وقاقيب قشي اسكو صوبحي ورساسة هلاع wuxuu marka hore aad baan ku salaamay isoo qorsho ahaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland waxay saaka si rasmi ah uga bilaabeen madax taabashada kunka qof gobolka Muruubiye caasimadiisa Hargeysa waxaan ku suganahay halkan oo ah garoonka dhalinta ee xaafadda Jigjiga yar ee magaalada Hargeysa waxaana halkan lagu balamiyo ku balansanaa taageerayaasha urur siyaasadeedka ilaa markii la haato goobta waxa soo gaaray taageerayaal aad tiro badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Hargeysa isla marhaantana waxay leeyihiin calanka astaanta oo ah urur siyaasadeedka hilaa iyo boodar ay ku xirdan yihiin astaamo loogu talagalay ururkaasi isla goobtaas daqiiqada kadib waxa soo gaaray Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka hilaa isla markaana hogaaminayay ururkan daqiiqad kadib taageerayaasha oo iyagu sidii jamaahiirta marka ka dambaysa soo qulqulaya ayaa waxa halkan soo gaaray guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland waxay halkaasi ka bilaabeen tirinta halka qof oo urur walba lagu xiray inuu gaaro kun qof hal mar waxay daqiiqadiiba gaareen taageerayaashii goobta ku sugnaa tiro ka badan 5500 qof taas oo noqotay mid ay dadku soo buuxdaafiyeen garoonkan daqiiqadan kadib waxa isla markii ay guddigu ka saxeexeen professorka sidoo qorshaha ururka diiwaangelintu ahaa marka ay tirinta goobtaas lagu dhawaaqo in gudoomiyaha ururku saxeexo gudoomiyaha ururku waxa uu halkaas ku saxeexay tiradii waqtigaas loo diiwaangeliyay ugu dambeyn jawigu waxa uu ku dhamaaday mid aad ay farxad ugu dheehan tahay iyagoo goobtaan ay ku sugnaayeen kooxda gobolada xiddigaha geeska oo iyagu qeyb ka ah taageerista urur siyaasadeedka hilaa urur siyaasadeedka hilaa ayaa waxay noqonaysaa gobolkii labaad uu kaga guuleysto tiradii lagu xiray iyadoo oo la filayo in isla galabtada ay ururada iyo gudoomiyaashu gaaraan gobolka saaxil caasimadiisa Berbera taas oo isla berito laba laga bilaabayo kormeerista xafiisyada isla saan dambana ay halka ka bilaabi doonto isla saan dambana ay halka ka bilaabi doonto tirinta kunka qof ee lagu xiray urur walba kaas oo noqonaya gobolkaasi gobolkii saddexaad gobolka Muruubiye ayaa isaguna noqonaya kiisi labaad horeyna waxa loo soo maray gobolka Awdal caasimadiisa Boorama oo iyadoo ah caasimada labaad ee Soomaaliland urur siyaasadeedka ilaa ayaa intii aan goobta ku sugnaa waxaan ku arkay calaamado ka duwan kuwii aan horey ugu soo arkay gobolkii Awdal taas oo ahayd in ay taageerayaasha goobta soo galayeen kuwa ay ka muuqatay dhiiranaan iyo shucuur gaar ah oo dareemayay saacadii ugu dambeeyay abaabulkoodu ahaa mid saacada ka dambaysa uu ahaa mid si xoogaysanayay isla waqtigii ay guddiga diiwaangelinta goobta ku sugnaayeen waxa goobtaasi soo gaaray taageerayaal cusub balse aan waqti loo helin in la firiyo saas ayay noogu soo dhamaatay jawiga farxad aad baad u maasan tahay jaamac Xuseen jaamac dude aad baad u maasan tahay sida xogta badan aad nooga siisay urur siyaasadeedka hilaa iyo wacdarii magaalada Hargeysa aad baad u maasan tahay daawadayaal wacdara la yaab la ka dhacay magaalada Hargeysa wacdara la yaab leh wariyuhu sidoo inoo sheegay wuxuu yiri 5500 waa waxaan la qaadan karin waa waxa aad u tiro badan Hargeysa way yaabtay maanta Hargeysa way yaabtay ciida dhaqaaqday arligu wada hilaac buu ahaa xidigihii geeska joogay Hargeysa urur siyaasadeedka hilaac buu xidhan yahay urur siyaasadeedka hilaac baa kala xidhay urur siyaasadeedka hilaac buu Hargeysa u xidhan yahay daawadayaal gobolka saaxil sidaas la midaan rajaynayna gobolka togdheer sidaas la midaan rajaynayna gobolkaas
sanaagna saasaan rajaynaynaa gobolka soolna sidaasaan rajaynaynaa arladaba hillaac baynu ka dhigaynaa hillaac baynu ka dhigaynaa waddankaba hillaac baynu ku shidaynaa waa ursaashadadu hoggaan u yahay بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أقويانا أنا إلا تايتلاهي جرين أرليغا سوماليدا جيغا سوماليدا مركلا غريبو ولالكي عبد إسماعيل سمتر داوود يال ووحلا يابلي ووعدنا لا يابلي وأرنا لقياس كرين هرجيسي بواهلا ودنكو بواهلا أرلادو بواهلا وريو سيدو ينو شيغاي وحلا ما فيلانا دعي تاغيرياشا شعورتودو way kacsanay waddankuba waa hillaac waa wax la qaadan karin waa wax la yaab leh runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin taageerayaasha urshashadada hillaac ee caasimadda Hargeysa boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin inta ayan ka badan waan rajaynaynaa arladaba hillaac baynu ka dhigaynaa qarankaba hillaac baynu ka dhigaynaa Soomaaliland hillaac baynu ka dhigaynaa aad iyo aad baad ugu mahadsantiin daawashada muuqaalkan fadlan like garee lana wadaaga asxaabtaada wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh